maanta waxa ka qabsoomay madaxtooyada Puntland shirkii golaha xukuumadda ee caadiga ahaa labaad ee madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni uu iskugu yeeray xukuumadii hore shirkaas oo looga hadlay inta badan shaqooyinka wasaaraduhu qabtaan xagga shaqada qaranka ay u hayaan iyo shaqooyinka u qorsheysan oo faahfaahin ay ka bixinayaan si madaxweynuhu ula jaan qaado isla markaana xuquuqaal dhab ah uga noqdo shaqadii dalka ka socotay midii qabsoontay iyo midda hadda qorsheysan taasoo 19 wasaaradood ee Puntland intaba madaxweynuhu uga dhageystay habshaqoodkooda xagga sharciga iyo shaqooyinka ay qabteen ee fulay iyo kuwa hadda qorsheysnaa sanadkan cusub hadii alla idmo wuxuu kula madaxweynuhu uga warbixiyay xukuumadda 10 maalmood u horeeyay qorshayaashii madaxweynuhu qorsheystay oo ka ahayd madaxweynuhu inuu uga warbixiyo golaha inuu ku dadaalay kana shaqeeyay 10 maalmood u horeeya joojinta canshuur dhaafka la sameyn jiray si dakhliga dalka loo kordhiyo wuxuu kula madaxweynuhu golaha u sheegay inuu ka shaqeeyay xiriirka caalamka Puntland ay la leedahay oo xoog u saaray wuxuu kula madaxweynuhu dib eegis ku sameeyay isla markaana hakiyay heshiisyadii hay'adaha la geli jiray si aan ilduuf ugu dhicin xukuumadda cusub ee madaxweynuhu soo dhisayo taasna madaxweynuhu golaha uga warbixiyay iyo sababta kaliftay wuxuu kala madaxweynuhu ka warbixiyay amniga Puntland guud ahaan gaar ahaan magaalada Boosaaso oo shaqooyin badan hadda ay ka socdaan xagga amniga iyo caasimada gaar ahaan waqtiga caleemasaarka oo feejignaan siyaada ah madaxweynuhu uu amray shacabka Puntland guud ahaan wuxuu kala madaxweynuhu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay dib u habeyn ballaaran in lagu sameeyo maaliyadda Puntland ee xagga maaragtay dakhliga iyo kharashka labadaba iyo in laga faa'iideysto qorshihiisana ay tahay sida looga faa'iideysan lahaa hay'adaha ay dhaqaalaha ay hay'aduhu bixiyaan oo ah muhiimad weyn u leh Puntland wuxuu kula madaxweynuhu magacaabay guddi kontroolaya ilaalinaya isla markaana soo diiwaan gelinaya gaadiidka iyo hantida dawladda oo dhameystiran si loo hayo isla markaana hantida ummaddu ay leedahay ay u gasho gacan aamina madaxweynuhu wuxuu golaha wasiirada u sheegay in hantida sida ugu dhaqsaha badan loo soo gudbiyo waxyaalaha kale madaxweynuhu aad ugu dheeraad waxa kamid ahaa in wada jirka iyo jiritaanka Puntland iyo amnigeeda qiimo weyn ay ugu fadhido shacabkeeda iyo maamulkeeda lana adkeeyo xukuumadduna waxay soo gudbiyeen wasaarad kasta waxay soo gudbisay kaydkeeda xagga qoraalka ee ah shaqooyinka qabsoomay kuwa socda iyo kuwa qorsheysan si madaxweynahana isha uu mariyo isla markaana ay u noqoto la jaanqaad xukuumadda cusub arrimahaas ugu muhiimsan arrimihii maanta madaxweynuhu iskugu yeeray golaha xukuumadda 17 bishii koowaad 2019 xoogeedana waxa lagu saaray in madaxweynuhu uga warbixiyo 10 casho arrimihii isha uu ku hayay iyo golaha wasiirada oo madaxweynuhu ka dhageystay shaqada socota midda hadda dhamaatay iyo midda qorsheysan aad u mahadsantiin